gabadha muqdisho ugu shidan waa wiilka muqdisho ugu shidan bay ku leedahay fartan balbalaarka walaalay danta balaqaataba Soomaaliya waxa dhalin ma qaadanaysaa adii aamin isla eegaysan dusaacad labadoo search aamin isla eeg ana horta aan waxa guursan lahaa dil la cid guurso samixa khaliba guursan lahaa samixa khaliba guursan maxaa ku dooratay samixa khaliba ilaa gabadha kale ba Natasha waa gabar qurux badan ilaa iyadu kulanti waxana wanaagsan daawadayaal oo mar kale muuqaal cusub channelka aan naga daawanaysan waa Diego Official fadlan muuqaalkan hadii ay markii kugu horeysay tahay daawanaysid please subscribe noo saar sidoo kale like tahay ilaa sababta like dhiirigelin noo tahay sax muuqaalkan si share garee waxa ila jooga maanta channelka marti ku ah marti kumihi adiga ada marti ku ah channelka famous official waa markii koowaad oo walaalkii ka soo noqdo mehradeeda yarta ah anta kaliya ma another level igu waalay saaxiibkay aad iyo aad baad maasantiin daawadayaal hadalka ugu dhageysoorey maanta halkan waxaan ku soo bandhigaynaa challenge aan horey loo arag oo alla maqal timxaal laha waa laba daran mid guurso baa laha aad iyo aad muuqaalkana hore u galeynaa maadaama waqtigu saaid noogu yar yahay waan hawlo iyo arrimo iyo wax naga dibdhacsan yihiin tahay ana bilaabiyo si iga feerwanta saacada iska dareema jima gala jima u baahan tahay sababtoo ah in soo isku hay nabad waa u bilaabaya markood laba qof soo qabanay markood waxa weeye waa Salma la Jalay iyo Fartuun Balbalaarka midkee guursan leeyahay looda ni horta laba daran mid guursan la yiri horta laba gabdhood aad baan u salaamayaa Salmo iyo Balbalaarka the building in the building gabadha muqdisho ugu shidan waa wiilka muqdisho ugu shidan bay ku leedahay fartan balbalaarka walaalay kuma guursan karo sawaaba iga waaraysa dhowr bari ka bacdi waa furlix sawnaan boqaatay leeyahay odaygii marka Salma la Jalay sida ku guursan lahayd Salmana ta waxaan dhigaa waxaan waa video de reality ma ahan odayga diraaca ayuu dhabi ii soo qaadanin aad iyo aad ma maasantiin marka aday ku maraysaa hadii aan ku soo qabto laba daran mid guurso hadii lagu dhaho islaan qaad wala ah oo carruurteeduna adiga ka waaweyn qaybtood sax ma guursan lahayd iyo gabar yar oo 15 sano markaa soo kacday laakiinse uur leh aad lahayn uurka wallahi islaanta guursan lahaatay maxaa ku guursan lahayd waa gabar yar maxaa uga tagtay may islaanta waxa ku guursan lahaa islaanta balaqaataba Soomaaliya waxa dhalin ma qaadanaysaa adii hada islaanta ciyaalkeedu waa ka waaweyn hada dambiir gashay dhamas bay kula dhacayeen ciyaalkii may ila ma ahaaniga kooda noqoniya waxa marka meesha ay mid la hadlayaan ma waxa leeyahay Soomaaliya kuma waa duu dhig yimaado dhawaaq dhimatay laakiin adiga habartii dad habeen isku dhacdaan oo kale ayaama iska qabina iska furla marka soo soo baxsan aad iyo aad aday ku maraysa markaagii Diego markana wax ku soo qabanaya gabar la dhaw barwaaqo nashaad ama saamiye sagal midkee guursan leedahay ni horta aad iyo aad ma mahadsan tahay barwaaqo nashaad iyo saamiye sagal waa laba gabdhood walaalahay barwaaqo aad iyo aad baad u salaamantiin barwaaqo iyo saamiyeba waxa anigu hadaan dhaho mid guurso barwaaqan dooran lahaa waxa ku dooran lahaa barwaaqo nashaad waxaan ku dooran lahaa barwaaqo nashaad waa gabar aad qurux badan waa gabar firfircoon saamiyo waa qurux badan tahay saamiya saamiyo adu khamaha ka soo gudubay barwaaqan dooran lahaa barwaaqo nashaad waxaas madaxa ay saaranta barwaaqo la soco aad iyo aad adiga hada ku weydiiyo yaa guursan lahayd laba daran mid doore another level hadii aan laba daran mid guursiya guursan lahayd bulo official gabadha TikTok naga waasha 24 hours aad iyo iyo maamuliyun la ilaha maamuliyun dabilin xirato walaal su'aal adag weeye laakiin labaduba de qofna qof maama ah Soomaaliyada adu waxa ku gabanay maama Soomaaliyada sheekadaas iyo guursan lahayd labadooda mid bulana xaga ku taagan tahay maamuliyun xaga bulana waa gabar Soomaaliyeed waa gabar taageero marka ana hadii la yiraahdo mid guurso de bulo guursan lahaa bulo official bulo saasa lagu qaato oo jeedaa de maamuliyun oo ku dhamaatay ايش على سيده ايش على قروحdeeda
anu xagga heesaas kuma fiicnin fanka ku baahan brada ما هيجا وعلينا ده هيتقدميني إن هذا كوا تقديم ضدنا وكوا على مقالة بوس وكسوين هذا أركان ساعة بيج كي وريقيا هذه أدول باسنت هاي marka labada qof oo kala ku soo qabanay waxa weeye waa Sundu Saacid iyo Aamin Isleeg labada midkee guursan lahayd نيو هو هرت لبا قبل aad ما شاء الله قروح بدن إلى قروح ده هيدين سياديو إلى عمرك هيدين ديريو aad دو واحد يدين لا شو أديك مرة سادر ثاني waxaan ku weydiinayaa ana isaga bidana su'aal baa ku weydiiyay maari masay hay way waxaan uga fooday xagga qaamaha ku jireen waxay Sundu Saacid iyo Aamin Isleeg iyo Sundu Saacid labadoo search Aamin Isleeg Sundu Saacid badada laga geli karo reer garow dhan baa dhibig soo qaadanaya hadii kale reer garow ama santi saaxiibyada raggan nina ogahay iyo nabaday weeye in laga takhaluso aan uma rabo nafteeda waan jeclahay ninka muxuu dalkayga waan jeclahay marka anu nafteeda waan jeclahay baan taagnaa Sundu Saacid anigu waxba kuguma sameeyeen goor walaashii baa tahay ma sha Allah ya laakiin iga daayarta waxa adigu ku maraysaa baasho waxaan ku weydiinayaa de Aamin doortaan weey Aamin doortaan ha waxaan ku weydiinayaa adiga hadeertaan laba daran mid guurso waxaan ku weydiinayaa islaan 9 sano jirta oo wani jeegeed ah oo macnaha sariir baan ka kici karin laakiin 9 sano jirta oo wani jeegeed macnaha waa habar qurux badan lacag haysata laakiin sariir bay saaran tahay ma garatay iyo gabadheeda ay dhashay iyadu oo 9 ciyaal haysata oo ninkii guursadaba ka dhinta ninkii guursan markuu hal ilma ka dhalo waa dhintaa horta dhimasho laga carari maayo meeshii ma dhimasho laga carari maayo laakiin waa caqabada koowaad haysta iyo caqabada haysata gabadha ninkii guursada markuu hal mar guursado ilma ka dhalo waa dhimanayaa uur ma qaaday habeenka ugu horeyso hadday macnaha dhowr 20 nin gabadha soo guursatay ma ogtahay laakiin hadii habeenka ugu horeyso uur ku qaaday hadii kala nasiib macnaha habeenka ugu horeyso ninka markuu u tago waaba dhintaaba walaal waxa sameeysto weey anaga ma sameeysan may sababta waxaan ku sheegayaa macnaha gabadhan waxay ku xuntahay bidhaantaada marka aragto waa isla gidaysa iyadu macnaha waa mar walba soo soco way caadiya waa mar walba teem waa cudurkaas ay qabtaaba cudurkaas dad badan baa u dhintay marka soo socda habeen waliba oo lagu leeyahay habeen waliba markii bidhaantaada aragtaba su'aasha ma bidashtaa may labada mid dooro iyo habartii dhashay oo 9 jir ah oo lacag haysata labada mid guursan saaxib horta marka soo waa la dhimanayaa ma garatay waa la dhimanayaa laakiin xaalad sariir ku dhimo baa xun ana waxa qabaa arrintan sameystay maadaama ay tahay ma sameysan in anigu gabadha aadi lahaa te waaba dhimanaysa gabadha daadi aadi aad dhinto marka soo dhimanayaan ma haya waa ku taalo markaasi sheekadan waa sheeko hore u dhacday waa qisooyin ka mid tahay marba idin kaga sheekan doona ma aha wallahi alcadiim ma waa qisooyin hore u dhacay macnaha bidhaantaada marka aragto isrog bay ku leedahay macnaha marka bidhaantaada ay ku aragto waxay ku leedahay marba ana ku weydiinaya marka sameysano haye ka soco gabar iyadoo waxay tahay lixaad ilaahay u dhameystirin oo amoola ama indoor sida u taqaano waa waray haye balo haye iyo gabar aan basariirta ka kicinba ay dartiis mid ka guursanay Allah xagga ilka iswan fiicnaa waa cayil ka cararabe walaalo tan indoolaha oo miskiinta hadii nolol shaqo badan bay gaarto walaal in waa iska wada laakiin tan cayilan sariirta ma ka qaadi karabe waa bajajabaya daa markaas oo qaadba sariir isbitaal baa rabta in la yararamiyo macnaha waxa la dhigi jiray xagee baa ku isbitaal bi oo yaa jabiyay naag buran bu guursado wuu qaaday dhabarku ka jabay way jabtay markuu tabarta sabar uma hayo saaxiib marka gabadha amoolaha de abuurta Allah la isku manacay gabadha amoolaha ba iska guursan laha maadaama aan anigu aan indhaw u ahay gabadha san qaadan laha sasmiya okay waa tahay wax marina gunti iyo gabagabadii iyo isfaragashiga iyo wax walba iyo qaamihi way soo dhamaadeen su'aasha ugu dambaysa faamoso maadaama adigu aad tahay qofkii bilaabay barnaamijka su'aasha ugu dambaysa dii aan ku weydiiyo waxaan ku weydiinayaa laba gabdhood mid guurso waxaan ku weydiinayaa Samiixa Khaliil iyo Natasha Abdi tee guursan leed labadaba horta waa laba gabdhood oo aad ugu qaali ah walaalahayga ah Samiixa Khaliil war walaalnimada ha ku dhuumanine baashiya guursan waxa maadaama iska for example iska tahay macnaha horta aan waxa guursan lahaa dil la cid guurso Samiixa Khaliil baa guursan lahaa
سميحة خليل بقولتين ما حكوا دورة سميحة خليل سميحة إلا قبل كلام نتاشا وقبل قروح بدنا إلا يدوي labadu waa qurux badan yihiin laakiin ani ahaan dooqayga qof kasta dooq uu leeyahay soo هاي samiixa aad oran lahayd سميحة دورة له عادي عاد وقت هاي دعوة ضيال نكاس سميح وكل سدي نتاشا وحيد نكوفة asxaabay wixii horta commentiga idinka weeye macnaha su'aalaha waa ujeedaan su'aalo waxa jira oo mataqaanaa isla markiiba igu dul sameeyay ما تشري حشا كل اللي حشا ولا يقانا ولا يقانا صح aad baan baasantay daawadayaashayada waxa maalin walba muuqaalkan usoo duubayno waa idinka dartiin heerka maanta joogno idinkana gaarsiiyay heerkan heerkooda ma jeclaan inaan gaarsiisan tartan baa ku jirna halka cas naga cadeeya wada waa subscribe-ta nili sheegi mayo ninkii caqli leh asaga uma garanaya sida u shaqaysan lahaa like t-shirt commentigu waa dhiirigelin waxaan idinkaga teganaa sidaas aniga faamoosiyo nabadgelyo